واتهاي داود يلا مركنا إنه يجنا أرهن كدوان أرهمها سيودان أو كسابسان حق فنكا مدها تنلقت شوقا هالبيل وحا صوب حضي هيس هالكودجي دي هاي بربر هيا شهيس تاسي مركا صوب حضي أيا برحة بلشدا وحا يكرا كورانتي فالعلين آدو بلاران أو أي كسميين dad badan oo isticmaala baraha bulshada dadkaasi oo ay fanaanin ka mid yihiin ayaa waxay ku dhageen qayb yar oo kamid ah heesta oo fanaankaasi uu israacinayo ereyada iyo ficilka heestaasi anoo ku jiifa qurqur jacayl ku xiray sarsar intuu igaliyay dardahar ayuu ii tuuray barbar tobannaankii sano ee la soo dhaafay ayaa fanka Soomaalida gaar ahaan heesuhu waxa ay noqotay in fanaaniintu ay siiskooda bulshada ugu soo bandhigaan sidaas oo ay tahayna fanaaniintu sanad walba waxa ay soo saaraan heeso aad u badan hase yeeshee inta badan heesahaasi ma yeeshaan saameyn xooggan iyo sidoo kale falcelin degdega oo dadweynuhu ay sameeyaan muddaha tanbil laga joogo oo dabayaaqada bishii December ee sanadkii hore ahayd ayaa fanaanka iyo sidoo kale majaajiliistaha loo yaqaan Umar Saciid Umar oo ku magac dheer Omar oo ku nool wadanka Canada waxa uu soo saaray hees erayadeedu ay laba dhacayaan oo halku dhageed yahay barbar ayuu tuuray barbar isla markii heestaasi hadaba ay soo baxday ayaa waxay la kulantay xamaasad iyo xiise gaar ah oo ay sameeyeen dadka heestani ay gaadhay ee isticmaala baraha bulshada falcelinta dadweynaha oo u badneed muuqaalo ay iska soo duubeen iyagoo jilaya qaybo kamid ah heestaasi ayaa waxa si weyn ay u qabsatay baraha bulshada waxaana dadkaasi kamid ahaa fanaaniin haween dad caana caruur iyo dhalinyaro intubana waxay u muuqdeen in qayb kamid ah heestaasi ay soo jiidatay iyagoo markaasi ku luuqeynaya qayb kamid ah heesta oo oranaysa ayuu ii tuuray barbar isla qaybtaasi heesta kamidka ah ayaa dadku ay raaciyeen ficil ay ku lamaanaynayaan ereyada heestu ay ka kooban tahay dadkaasi barbarka isu tuuraya oo ku sugan meelo kala duwan iyadoo dadka qaarkood ay heestaasi ku jilayaan goobo barafa qaar kuraastooda iska tuuraya iyo kuwa si jamaca heestaasi ugu luuqeynaya si ay u muujiyaan falcelinta heestaasi بربر كاسنا ونوصر بربر dadka heestani falcelinteeda ka qayb qaatayna waxa kamid ah shaqaalaha safaaradda Mareykanku ku leeyahay magaalada Djibouti ee caasimadda Djibouti oo iyaguna arintaasi ay gaadhay haddaba telefishanka Home Cable ayaa waxa goordhaweed uu la xiriiray fanaanka heestaasi ku luuqeeyay Umar Saciid Umar oo ku sugan magaalada Toronto ee wadanka Canada waxaana wax ka weydiiyay qisada heestaasi magacaygu waa Umar Saciid Umar oo ku magac dheer Omar heestan waxa sameeyay abwaanigu qaaliya Mawlid Xasan Curjin run ahaantii qisada heesta abwaanka garanaya laakiin anigu heesta waxaan u qaatay waa hees fani ah oo haddana jacayl ah sababta aan u qaatayna waxay ahayd markaygii hore intaan fanka soo gelin waxaan ahaa comedian majaajiliste sida darteed baan heestan uga helay oo u jeclaaday una qaatay fanaan Omar ayaa markale telefishanka Home Cable waxa weydiiyay bal waxa uu maleynayay inay ugu wacan tahay falcelinta heestan ay kala kulantay shacabka run ahaantii waxaan isdhihi karaa ficil celinta dadka waxa keenay heesta oo ah hees unique ah oo aan la mid ahayn heesaha caadiga oo ah qaab ka duwan heesii hore bulshadana waxay jeceshahay run ahaantii wixii cusub waana ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed dhamaantood ficil celintooda quruxda badnayd
aad bayna ii dhiirigelisay. Mr. Omar ayaa sidoo kale aanu weydiinay goorta uu bilaabay ku luuqeynta heesaha maadaama markii hore uu sameyn jiray majaajilooyinka. heesaha waxaan bilaabay 2017 bishii 7. ugu dambeyntiina waxaanu wax ka weydiinay hami intee leeg ayay gelisay markii uu arkay falcelinta dadka Soomaaliyeed ee heestaasi ay gaadhay ay ka sameeyeen maadaama si weyn loogu faafiyay baraha bulshada. waxaan u arkaa dhiirigelin shacabka Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeed oo ku luuqeynaya heestan. anigana waxay ii tahay farxad. ayagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed, fanaaniinta Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. waxaan kale u mahadcelinayaa Honkable TV. Fanaan Omar ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay bulshada Soomaalida ee matalaysa ama bajilaysa erayada heestaasi in ugu yaraan ay ka fogaadaan khatar inay kala kulmaan isla markaasina marka ay ficilada heestaasi muujinayaan ay doontaan meelo ku habboon oo aan khatar ku ahayn naftooda.